soo dhawaada asxaabta. dunidan waxaa ku nool dad taalanti leh kuwaasi oo aan caadi ahayn. haddaba waxaan idiin soo gudbinaynaa qaar ka mid ah dad leh xirfado aad la yaabaysid. intaan u gudagelin, haddii aad ku cusub tahay channelka maanta, subscribe si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub. hana hilmaamin inaad la wadaagto asxaabtaada adigoo sheergalinaya muuqaalkan. cunista dhagxaanta. sida aan ka warqabno, noolayaasha oo isugu jira dadka iyo xayawaanada waxa ay maalin walba quutaan cuntooyinka caadiga ah si ay u noolaadaan. balse waxaa jira waxyaabo mararka qaar ay adag tahay in laga dhaadhiciyo oo bini'aadamka qaar ay sameynayaan. Teresa Wender oo ah haweeney u dhalatay dalka Ingiriiska ayaa maalin walba cuntay 1 kiilo oo dhagxaan ah, taas oo ay si aad ula yaabeen dadkii jaarka la ahaa. cunista dhagxaanta ayaa noqotay mid ay joogtayso maalin walba, waxa ayna sheegtay in ay ka hesho qudashada dhagxaanta. noocyada dhagxaanta ay cunto ayaa ah kuwa aad u adag, iyadoo ilkaheeda ay yihiin kuwa la yaab leh oo u suuragelinaya in ay si fudud u kala burburiso dhagxaanta. waxa ayna bilowday 10 sano ka hor cunista dhagxaanta oo qayb ka noqday nolol-maalmeedkeeda caadiga ah. balse qaar ka mid ah dhakhaatiirta magaalada Bedford oo ay degan tahay haweeneydan ayaa ka digay xaaladdeeda caafimaad oo halis geli karta, waxaana lagula taliyey in ay joojiso qorshaha dhagax cunista. Jokes Billy. haddii aad furto qaamuuska oo ah buug lagu keediyo ereyada, ayaa waxaa suuragal ah inaad aragto ereyo badan oo aadan weligaa maqlin oo kugu cusub. waxaana meelo badan oo dunida ka mid ah lagu qabtaa tartamo caalami ah oo la xiriira dhinaca ereyada, gaar ahaan luuqadda Ingiliishka oo ah luuqadda loogu isticmaalka badan yahay adduunka. Jokes Billy ayaa noqday kan ugu khatarsan dhinaca higaadda ereyada luuqadda Ingiliishka, wuxuuna dhowaan wacdaro ka dhigay bandhig caalami ah. ninkan ayaa ah mid awood u leh in uu si fudud u higaadiyo erey walba oo Ingiliish ah, iyadoo taasi u suura gelisay in lagu daro buugga lagu keediyo layaabka adduunka ee la yiraahdo Guinness World Records. waxaana guushii uu gaaray lagu guddoonsiiyey abaalmarin iyada oo loo aqoonsaday qof aan caadi ahayn. ninkan ayaa waxyaabaha layaabka leh ee uu sameeyey waxaa ka mid ah in ereyada loo weydiinayay si boobsiis ah, isaguna uga jawaabayay si degdeg ah oo aan hakasho lahayn. waxauna waqtigiisa ugu badan ku qaatay wax akhriska, taasi oo la rumaysan yahay inay u suura gelisay garashada erey walba oo la weydiinayay. kudul fariisiga weel karaya. qaar ka mid ah wadaadada heesta diinta Buudhiiska oo ay ku xiran yihiin dad badan oo aaminsan ayaa soo bandhigay waxyaabo aan caadi ahayn oo mararka qaar ay kugu adkaanayso in aad rumaysato waxa ay sameynayaan. sida aad u jeedaan, wadaad-diimeedkan u dhashay dalka Thailand ayaa ku dul fadhiya weel lagu shubay saliid oo dul saaran dab, waxaana halkaasi ugu yimaada dad ku xiran oo wax ka barta. muuqaalkan laga duubay ayaana internetka ku baahay. dadka qaar ayaa aaminsan in ay been abuur tahay dabka holcaya iyo saliidda uu ku dul fadhiyo, balse qaar ka mid ah xeeldheerayaasha sayniska ayaa sheegay in ay jiraan khiyaanooyin la adeegsan karo. ardayda wax ka barta wadaad-diimeedyada Buudhiiska waxa ay qaataan tababaro adag, iyada oo la sheegay inay soo wajahdo dhibaato xooggan oo ay ku soo kacdo jugta gaarta marka ay sameynayaan tababarada. Brian Shaw waxa uu ka mid yahay dadka ku caanbaxay qaadista waxyaabaha culus, waxa uuna ka qayb galaa tartamo caalami ah oo lagu qabto meelo badan oo ka mid ah adduunka. ninkan ayaa sameeyey dhowaan rikoor cusub kadib markii uu qaaday dhagaxaan culus oo ay adag tahay in si caadiya loo qaado. Brian ayaa qaaday 2 dhagax oo waaweyn oo miisaankoodu gaarayay 330 kilogram. sidoo kale waxa uu ka mid yahay dadka ugu miisaanka culus dunida, isagoo culayska miisaankiisu uu gaarayo ilaa 400 oo kilogram, taasi oo u suura gelisay guusha uu dhowaan gaaray. Brian Shaw ayaa ka sheekeeyey sirta ka dambeysa guusha uu gaaray, isagoo xusay in uu si sax ah u raaco shuruucda dhismaha jirka xilliyada uu tababarada ku jiro. sidoo kale waxyaabaha kale ee ugu muhiimsan waxaa ka mid ah cuntooyinka uu cuno ninkaani oo ah kuwa dheelitiran. waxaana cuntooyinkaasi ka mid ah ukunta, bariis, hilib, qudaarta cagaaran iyo waxyaabo kale. ninkan ayaa waxa uu safka hore ka galay dadka ku caanbaxay qaadista waxyaabaha culus. ninka korontada. mucjisooyinka dunida ka dhaca ayaa ah kuwo fara badan, iyadoo shakhsiyad fara ku tiris ah ay sameeyaan waxyaabo aan caadi ahayn oo ka yaabinaya. Raj Mohanner oo u dhashay dalka Hindiya ayaa sameeyey arrin mucjiso ah kadib markii uu goob fagaara ah uu jirkiisa ku dul qabtay koronto. ninkan ayaa fiilooyin koronto ah oo fiiqan ku dul qabanaya qaybo badan oo jirkiisa ka mid ah sida afka, madaxa iyo feerihiisa, halka dadka kale aysan awood u lahayn in ay sameeyaan waxyaabaha la yaabka leh ee uu soo bandhigay, taasi oo keeni karta in qofka si fudud ugu dhinto haddii uu isku dayo. Mohan oo lagu tilmaamo ninka korontada ayaa ka yaabiyey dad badan oo ku nool daafaha caalamka.
isagoo aysan waxyeelo ka soo gaarin korontada marka uu jirkiisa ku qabto. Ninkan ayaa markii uu jiray da'da 7 sano waxaa qabatay koronto culus balse ma jirin waxyeelo ka soo gaartay, taas oo la yaab ku noqotay dadkii halkaasi ku sugnaa. Waxa uuna 10 jeer xagga korontada uga adkaysi badan yahay dadka caadiga ah. Korontada ayaa ah mid inta badan si fudud u disha noolaha, iyadoona joojisa shaqada wadnaha marka ay qofka qabato. Haweeneydii tattoo-ga. Dad badan oo ku nool caalamka, gaar ahaan kuwa aan ahayn muslimiin, ayaa isticmaala tattoo oo ah calaamado lagu xardhayo qaybo ka mid ah jirka bini'aadamka. Mamu Batu oo ah haweeney 100 sano jir ah oo u dhalatay dalka Philippines ayaa waxa ay ku caan baxday dhinaca tattoo-ga iyada oo ku samaysatay meelo badan oo jirkeeda ka mid ah tattoo. Sidoo kale haweeneydaasi ayaa u samaysa dadka tattoo iyada oo adeegsata xirfad sare maadaama ay hawshan ku jirtay muddo aad u dheer. Haweeneydan gobolka ay kaga nooshahay dalka Philippines waxaa ku soo booqda boqolaal dad ah oo ka kala yimaada dunida, ayna ka mid yihiin dalxiisayaal si ay u arkaan tattoo-ga sida ay u sameynayso. Qaabka ay u adeegsato marinta dadka tattoo-ga ayaa ah mid qofka jirkiisa si la yaab leh loogu garaacayo shay qofka duraya oo u samaysan sida musmaarka oo kale. Waxayna aad ugu qanacsan tahay haweeneydan dadka faraha badan ee soo booqanaya, iyadoo xustay inay hesho khibrad badan isla markaana fursad u hesho in maalin walba ay la kulanto dadyo kala duwan. Waxaana xarunteeda ku xiran haween badan oo qaarkood ka barta samaynta tattoo-ga oo dadka qaar ay rumaysan yihiin inuu isbeddel wanaagsan ku sameeyo jirka bini'aadamka. Weli ma la socotaa? Waxaad ila soo gaartay dhamaadka. Si aan shaqad kugu sameeyo muuqaalka xiga, commentigaaga hoos ku soo qor adigoo soo raacsiinaya isoo qaado. Marka waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalkan la gareyso, sababtoo ah YouTube-ka muuqaalka sida uu laag badan u helo ayuu dadka u sii gaarsiinayaa. midda kalena subscribe dheh, siina gaarsii asxaabtada muuqaalkan. mahadsanidin.